qofka muslimka ah wax ma beero geed ma taago ama zarac midho dhulka kuma rido oo bini aadam ma cuno ama xoolaba ma cunaan ama cidi uun ma cunto buu nabigu leeyahay ilaa iyo sadaqad bay u tahay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى درس وحو كساب سيسيهي مشكلة الأمن الغذائي للأمة. dhibta ku saabsiisan isku filaanshiyaha cunnada waan jirin. alasl waxaynu naqaanaa cunnadu inay tahay ghariisa min gharaa'is alinsaan ama waxyaabaha bini aadamka ilaahay uu ku abuuray baahiyaha alle subxaanahu wa tacaala waa aadanaha ku abuuray waana sabab ka mida sababaha ugu weynee biqaa'u ljinsi albashari in aadanuhu noolaado. ilaahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna aطacaam. ilaahay markuu tilmaamaya ambiyada waxaa la yidhi kamaanan yeelin jasad aan cunno cunin, yacni cid waliba inay cunno u baahantahay baa ilaahay tilmaamayaa aadanaha ka mid ah. غداغو halkaasuu jooga. amniguna dee waa nicmooyinka ugu waaweyn waayo cagsigiisoo baqa ahi waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhaca bale aakhire ka dhaca. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka marka jannada la tilmaamayo udkhuluuha bisalaamin aaminiin baa la tilmaamaya. xawaalay waxaan u malaynayaa 12 meelood bay qur-aanku soo aroortay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay tilmaamayo. sida awgeed qur-aanku waxa uu inooga warramayaa ahmiyadda ay shucuubta iyo bini aadamka u leedahay cunnadu, bale wuxuu isku xidhayaa amniga iyo nabadda ummadi ay haysato iyo istiqraarka siyaasiga waxaa la yidhahdaa deganaanshiyaha siyaasadeed ee ummadi leedahay iyabuu isku xidhayaa iyo cunnada. walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf. quraysh markii ilaahay u manno sheeganayay waxaa rabbi leeyahay ha caabudaan rabbiga subxaanahu wa tacaala beytkan leh kaasoo aladii acamahum min juuc gaajo ka quudiyey wa aamanahum min khawf cabsina ka nabadgeliyey. sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyana may ihmaalin qadiyadda tani si xooggan bay u tilmaamtay oo alxayaati alaamina almustaqira nolosha deggan wuxuu xadiisku ku tilmaamayaa inay 3 rukun leedahay. 3da rukun ee nolosha deggani inay ka mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam man asbaxa minkum alyawma aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih aw fii badanih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. xadiidka imaamu termidi warinaya culammaduna saxiixa ku tilmaameen wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka hoygiisa ama tolkii ama gurigiisii ama qoomkiisa dhex jooga isagoo nabad qaba, nabad haysto aan cabsiyi jirin, jidh ahaanna caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haysta,
يعني qofkani nabad buu haystaa nabaddii guud ahaaneed oo cabsan maayo jir ahaanna nabad kaluu haystaa oo uu caafimaad qaba bale sheegan maayo iyo xanuuntoona maalintaana wuxuu cuno ayuu haystaa kaa adduunka ku soo ururay buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddaba mas'aladan ay yidhaahdaan mafhuum alamni alqawmi waxaynu nidhi amnigu guud ahaan waa qofku inaanu dareemin cabsi hadaaguna waa waxuu qofka bini aadamku quuto oo uu enerjiga iyo tamartiisa ka helo mafhuumin amni alghadaa'i markaynu idhaahna markaa waxa weeyaan qofku inuu helo cunnadii uu u baahnaa tayo iyo tiraba inuu ka haysto wixii nolosha daruuriga u noqon lahaa ama isku filaanshiya inuu halkaasi ka joogo ama baahida bini aadamkee dabiiciga ah ee raashin ku saabsiisan inaanu warwar ka haynin waxay yidhahdaan rakaa'ista tiirarka ay ku tiirsantahy waa saddex bay yidhaahdaan wafrat alghadaa hadadu mid la heli karo cunnadu mid la heli kara inay tahy waanay macduum ahayn ka labaadna waxay yidhahdaan waa alqudra ashiraa'iya dadku inay iibsan karaan oo ha la helo cunnadiiyo waa gobolka ama dhulka ha taalle inay dadku awood u haystaan inay gadan karaana iyo inay mustamirto istimraariya inay haysato oo la rajaynayo cabsi aan laga qabin in berri ama bisha dambe ama sanadka dambe in la waayayo inaan cabsi laga qabin haadihi rakaa'is athalaatha bay yidhaahdaan waa rakaa'ista alamni alghidaa'i lilumma haddaba cunnadu nabadda qabtaa waayo bini aadamka maanta jooga xanuunada qaarna waxay dhahaan tacafun buu ka yimaadaa poison jidhka gala ama bakteriyad iyo viruses iyo wax gala inta badan xanuunada waa la daweyn karaa bay yidhaahdaan xanuunada badhna wuxuu ka yimaadaa bay yidhahdaan amraad alistiqlaabiya kuwa yidhaahdaan cunnadaa keena waa xanuunada musminka ee iminka dunida inta badan loo taaglaayay oo wadna xanuunada iyo dhiigkarrada iyo macaanka iyo maxaa la yidhahaa dhagxantan beerka gasha iyo kuwan gala maraarada iyo waxa la sheegaya tirada badan la xanuuna iyaga cunnaa samaysa yacni quality-ga cunnada iyo noocay tahay ayaa sababe maaha wax kaloo debad kaaga yimi idan in la helo cunno caafimaad qabta iyo awooddii lagu gadan lahaa iyo istimraariyadeeda in la hela rakaa'isu ah baynu nidhi haddaba dunida gaajada ka jirtaa ma qilatulmawaarid baa ma dunida waxa kor yaalla quudka ah baana aadanaha ku fillayn mise waa suu'u tawsiic bini aadamku siduu wax u qaybsadaan cadaalad ku sugnayn labada waa iyama alasna waxaynu leenahay dunida waxa kor saarine aadanaha uu ku filan yahay inkastoo aynu ognahay aragtidii wadaadkii ingiriis ee raahibka ahaa ee dad badan oona ay daba socdaan robert malthus markii lahaa dadkaa tiro badanayo dadku si handasiya ayuu tiro badanayaa yacni kow labado afartu saasuu u badanayaa tilmaamayey oo le mawaariduna maba kordhayso markaa wuxuu leeyahay dunida waxay yaallaan dadka ku fillayne aragtiyihiisu aragtiyo cunsuriyo ah dadka badha laga takhallusin weeyaan markaan si kooban u tilmaamo aadanaha dunida ku nool markaa wuxuu arkayaa kawaarista balaayooyinka iyo dagaalada iyo waxa mashaakil dunida ka jira iyo gaajada iyo waxa kani inay tahay naxariis rabbi oo xagga rabbi uga timi ama naxariis bini aadamku isu naxariisto badh laga takhallusay sida inta kale u noolaato asalku saakiin wuxuu yahay saa qur-aanku tilmaamayo wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi dhulka kan ilaahay baa barakeeyey barakadu waa maxay khayr badan baa dul saaran weeyaan waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala quudkeeda noolaha kor saarana wixii uu cuni lahaana ilaahay baa ku jaangooyey rabbi saasuu qur-aanka ku sheegay walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliila maa tashkuruun
ilaahay wuxuu leeyahay dhulka ayaanu idin makan siinay wajacalnaa lakum fiiha macaayish jamcu maciisha waxa ku noolaan lahaydeenna waa idin dul saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee intaa mahadnaqaysaan baa yar wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha dunida wax daabbada wax socdoo korkiisa joogaa ma jiro ilaa iyo ilaahay baa isku laazimiyey arsaaqdeedii way taallaa walidaalika waxaan leenahay xataa aqoomaha bini aadamku maalan haddaynu ra'yiga maaltoos tilmaamnay bal kuwa ka gedisan ra'yigoodana aan wax ka tilmaamno alasma alghadaa'iya fi alcaalam walwaطani alcarabi ninka qoray moxamed khaliifa waxa uu soo naqlinayaa dhulka buu leeyahay aynu ku noollay masaaxadiisu yaabisada inta engegani waa 13.2 bilyan oo hektar inta yaabisada ahi intaa nus ka midi qaabil lizaraaca maaha that means 6 point something ayaa ah waxa qaabil lizaraaca wax laga beeri kara ah inta qaabilka lizaraacaga ahna rubuc ka midi bale rubuc wax ka yara dhaafsiisan 25.7% boqolkiiba 25.7 ahina waa dhul daaqsimeed buu yidhi inta soo hadhay dhulka oo rubuc markaas wax dhiman ah waxa hadda la beeraa waa 43.5%. waa boqolkiiba 43.5 rubicii intaasaa laga beeray saa daraaddeed waxay leeyihiin dhul badan oo la beeran karaa weli baylaha kaasi waa mid culamo kale oo ka mida culamada aqoon-yahanada qaar ka mida waxay qabaan dhulka aynu ku nool lahay xawaalay 740 bilyan oo bini aadama uu quudin karaa bay leeyihiin 740 bilyan oo bini aadama uu quudin karaa weliba waa marka la eega bay yidhaahdaan mustawaha nolosha maraykanka ciddii uun aragtay baa aragtaye wax walba 3 laab bay ka cunaan wax kastoo bini aadam liqo yacni koobka sharaabka lagu cabbaa waa mid yar mid dhexe iyo mid weyn dadku ka waaweyn unbay cabbaan mid intan laa leeg marka wax walba waa koob intaa leeg haddii lagu eega bay yidhaahdeen mustawaha jabaaniiska dad cunno badan maaha mustawaha jabaaniiska haddii lagu eega bay yidhaahdeenna 107 bilyan oo bini aadam u quudin karaa dhulka waxa kor saarayna bay leeyihin yani iyaga aragtidooda waxa weeyaan sida maraykanka haddaynu boobnana buu leeyahay oo qofkii maraykaniba 3.3 jabaaniis u dhigmaa 3 qof iyo weliba dheeraad jabaaniis intay cunaan ayuu cunaa weeyaan haddaynu sida jabaaniiska bini aadamka u quudinina 107 bilyan iminka 7-8 baa la sheegayaa soo maaha bilyan dunida inay kor saaran yihiin intaasuu quudin karaa bay leeyihiin haddaynu sida maraykanka ka dhignana 47 culamo kale waxay qabaan oo leeyihiin dhulka la islaaxin karo ee dhulbeereed laga dhigi karo wixii uu wakhtigaa dadka quudinaya ixsaa'iyaadkan markay soo saarayeen malaa 5 bilyan meelahaasuu dadku ahaa 10 adcaafiha buu quudin karaa that means waa tiradii waanu tilmaamayna wax ku dhodhow 50 bilyan oo weliba mustawayaadka sare markay wax u cunayaan bay leeyihin wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay iftiraadaad cilmi oo kale jiro oo odhanaya waa la siyaadin karaa masaaxada dhulka ee qaabil lizaraaca oo iminka 6.5 ah waa laga siyaadin karaa oo dicf 2 laab baa la gaadhsiin karaa haddii waxa hadda jirun si fiican loo beerana waxay gaadhi kartaa buu tilmaamayaa 36 bilyan bini aadama in la quudin karo qolo kale oo culamada ka mid ah waxay tilmaamayaan war ilaa 130 bilyan wuu ku filan yahay yastawcib wayuطcim wayakfi bay leeyihin waa qaadayaa dhulku waana quudin karaa waana ku filan yahay si kale haddaynu u tilmaamno waxay leeyihin war dhul beereedkaba maaha dee technologygu uu horu maray bini aadamku mar kastaba horta abaaraha iyo gaajadu
casriga hadda la joogo kuwii ka horreeya ka abaariya gaajo badnaan jiray marka abaariya gaajo la tilmaamo bay leeyihin ee bini aadamkuna bidca malaayiin uu ahaa ayay kaga badnayd laakiin nadariyada maaltas waxaanay u shaqaynayn bay leeyihin hadda xataa technologygu wuxuu gaadhay dee in wax la beeri karo iyadaan dhulba lagu ridin imika waxaa ogtihiin in loo beeri karo biyo iyo chemical quroo la isku daro geedka inta hoosta loo geliyo biyo chemical quro inuu bixi karo aan dhulba lagu ridin oo waddannada qaar hadda wax ku beeraan idan futuuxaadka cilmiga ee ilaahay bini aadamku markay tiradiisu iyo korodhaba futuuxaadka alla u fura waa tiro badan yihiin waagii hore inta hektarka laga soo saari jiray ama 1 hektar oo dhul intuu quudin jiray imka waxa laga yaabaa 10 laabkeed iyo 20 laabkeedba inuu quudin karo hadda farsamooyinka cusub ee technology-ga marka la isticmaalo waxay leeyihiin biyaha wax lagu beerayo mid engineer wuxuu leeyahay waxa bay la mid tahay waa ka radaaca sinaaciya buu leeyahay soo hooyadu markay ilmaha dhasho haddaan naaskaba la nuujinayo waxaan la walwalaaqa la siiyo dee wuu iska noolaan karaa waa saasoo kale buu leeyahay haddaynan dhulkaba wax ku ridine biyaheenna iyo chemicalka iskaga ridanno waa la beeri karaa buu leeyahay waa soo bixi karaan sida radaacda sanaaciga oo kale u noqon karaa maxaan weedhaha kan u soo naqlinaya u tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa aragtidan tashaa'umiga ee quusta bini aadamka ku ridaysa ee odhanaysa dadkii baa tiro bato cunnadaa yaraanayso dunidu way madhanaysaa waxba kama jiraan dadkaa tiro batay dhulkuna waa ku filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii iyo idaaradii iyo xooggii lagu maamulan lahaa adduunka ee wax lagaga soo bixi lahaa haddaba gaajada jirtee dunida dul taalla waynu ka mid nahay waxay ku timaadaa bay leeyihin suuء الtasaruf wa tadaalum maamul xumo iyo dulmi bini aadamku isdulminayaa ah sabab اlmajaaca bay leeyihin si kale haddaan u dhigna bay leeyihin alathra greediness hunguri weyni iyo cadaalad xumo iyo takaaful la'aan cadamu takaamul bini aadamku inuu isdheeli tiro takaafulo aanu jirin iyo mawaaridda la haysto si xun loo isticmaalayo wixii la haystay oo si xun loo isticmaalayo ayaa ah bay leeyihiin asbaabi nudra ee ma aha nudro xaqiiqiyo jirta maaha gaajada iyo baahida jirta kuwan baa sababaye may sababin wax la'aan dhulka korkiisa saarane haddaba waxaan leenahay mafhuumkan la yidhaahdo alamni alghadaa'i haddaynu usoo gudubno in si nabada loo helo wax la cuno waa mafhuum qadiim oo bini aadamku weligiiba uu ka fakerayey imikana shuruux cusub oo xadiida yeeshay ummad kastaa inay tijaabiso isku filaanshiiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay bee looga baahan yahay inkastoo iminka jaa'ixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul-qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger alcaraabi alamriiki siyaasa alkharajiya amriikiga ee yahuudigii dejiyey aragtidiisa waxaa ka mid ahayd oo uu u arkayey duwalka shidaalka haystiya waxa kale hadday enerjigii dunida qabsadeen buu leeyahay innaguna waxaan u baahannahay inaan qabsanno buu leeyahay cunnada dunida iyo bini aadamku wuxuu liqayo si aan u kontarooli karno ficlanna faqiiha istaraatiijiga cabdalla nafisi marka uu ka warramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida u burtuurka ah ee maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasat alkhaamaat oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khaamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sarreenka labadaasay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyagaa soo saara iyagaa suuq geeya iyagaa iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyagaa haysta iyagaa leh
waxay kaloo leeyihiin cunnada dunida sarreenkana iyagaa gacanta idinku waxbaa beerinaa la yidhi hadday beeraanna suuqa laga saaraa annagaa idin siinayna wixii aa cuni lahaydeen annagaa idinka iibinayna markaanu doonnana annaga ku cuno qabataynayna oo kaa joojinayna ilaa intaad baktiyayso ama aad warkayga u hoggaansanaanayso 3 shay oo kaluu tilmaamayaa markaasi oo hubku ka mid yahay oo majlis al-amni iyo waxaan United Nationska la sheegayaa ka mid tahay oo ka mid yahay maxay الثقافة جامعات كي علمك يا قونت يا تكنولوجي يا ميديا يا واحد بس عضها اسكو صوت ضوضوب وحين لنا ما أنت الأمن القومي يا أمدائيلاده هي الأمن الغذائي وقضية استراتيجية وأرن أن كفتن كجلين وأرن أمد ولي بين السحر وجن وقفكرته أي تاجنت هي إن دنيا وحسوسار كذا بيدا هذان خيرات كذا طبيعي جيب بني آدم كو صوصار الدنيا يالا بقول كي بس ديتا واحد بني آدم كو صوصار بقول كي بالله بعتم بني آدم كم يدعونا أنت كلا والله قاعد شيء بقول كي بدوري يلا 10 مليون 25 مليون وحكا بدننا قاعد شيء أنت بيدا سلام راكم واحد هذان خيرات كودن كولية بقول كي بشام باق عنتك وهي وحنفليه ولا بإحساسيات كان إني قديم يهينه إني هدا كيرطي بقول كي بس سقاشن إنك بدننا يعني بقول كي با سقاشن خيرات كي ودن كشام باه يستطاع مركا إنه صور ضافنا إحساسيات كا يورركا صورن دوني دا قضية دا عنده وجوع كلبك يتبعك eygaaga gaajisay bay yidhaahdaan ha ku dabagale eygu hadduu dhargada iskaga ka tegaya laakiin haddaad u siido salada wuxuu u jiraanoo kolbaad wax u tuurayso oo ku daba soconaya ha hiya siyaasa raashinkee dunida maanta taalla waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qallooc badan bay wadataa oo nebigu muxuu ku tilmaamaya kufrigu فقر إنه كفر نقضابه كله ياهي ولذلك انحرافات بلشيدو اجتماعية كردشة بل الدولة ده هو الله طليا وكويد هذا من لا يملك قوته لا يملك قراره قف كان وحونه سقو هاي السنة قوان كي سمال بيد هذا قوان كعدة وحكوسي صالح وهي المامان gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyaga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaabuu is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana 3 shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsul intaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya
waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo stoor gareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu stoor gareeyo meel cunno lagu stoor gareeyaba ma lihin waddanka oo dhammi meel cunno lagu stoor gareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa idan meel loogu talagalayba cunno bini aadam in lagu stoor gareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda 15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida qaybta labaadna waxay dhahaan waa hidaarka waa dadku siday u daadiyaan wax cunnada la qubo ama tan dusha la iska saaree tirada badan leh cunaan aad u baahnayn haddaad cunto dee waad qubtay dunida waxay yidhaahdaan dad saddexdii qof ee dunida ku noolba mid baa suu taqdiya haysataa bay yidhaahdaan saddex qof oo kastoo dunida korkiisa maraya mid baa cunno xumo haysataa midkan aynu sheegayna cunno xumadu haysato waa labada daraf bay yidhaahdeen midna way ku yaraatay dabeetana wuu u bukaa midna way ku badatay dabeetana wuu u bukaa labadubana way bukaan waa boqolkiiba 30 bini aadamka dhulka kor saaran bay leeyihiin baa suu taqdiya haysataa suu taqdiya haystaa waa maxay midna waxaan caafimaad qabin ama aan fiicnayn ama buu isku badiyo cunay dabeetana dhiikar iyo kolestarool iyo sukorow iyo dhagax iyo baliya baas baa galay iyo samna baruur oo waxa la yidhi hadhowna boodbood oo lacag kala bixi oo iska rig inta ku saaran midna gaaj ah haysata idan waxa yaallaa bay leeyihiin saddexda ugu daran ee caalamka saddexaad aynu ka mid nahay yaalla waa imaa inuu marka horeba wax soo saarku liito dadku aanay wax soo saarayn ama inta ka lumaysa wixii ay soo saareen inay tiro badantay ama inta muhadarka ee ihdaarka lagu sameeyey la lumiyey ee noocyadka kale aynu sheegayno loo lumiyey ama qaabka loo isticmaalayo aanu ahayn qaab saxa misalan caalamka carbeed bay yidhaahdaan boqolkiiba 60 biyaha isticmaalaan waa muhadar bay leeyihiin waa si aan caadi ahayn baa loo isticmaalay waa si ka yar baa loo isticmaali kari lahaa saa awgeed waxaan leenahay dunida wax la'aani ma taalo markastoo aadanuhu uu soo bataba ilaahay cilmi u furay mar bay dunidu dhir shidanaysay inagu weli halkaasaynu taagannahay enerjigeenu inuu weli dhiriyey ummadina ma horumarto horumar ummad kama suurtagal aha laba shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummaddii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha weligeen baynu soo khudbada soo akhrino sheekayno waxaynu cabnaynu laana xagaynu ka horumarnaa waxaynu shidanaa ama energy aynu isticmaalana waa laanay laa gaas walaa layd walaa waxba toona weli geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa markaa casrulxajari baad nooshay wakhtigii dhagaxa waxay yidhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen oo ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagaxdii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana taaqa sinaaciya daaqada la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi daaqada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go-aan dee cadceeddu markay dhammaato dee dunidaa dhammaanaysaa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu u furayey taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynine inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu dee weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin
casrigii nabaadka geedka la shidayey mushkilat alqadaa waa mushkila taariikhiya waxaana laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaabihii dagaallo badan oo dunida ka dhacay dagaallo dhaqaalay ahaayeen ama siraac tabaqiya ixtikaarkan caalamiga ee cunnada lagu samaynayey isticmaalkii dunida gumaystay wax badani ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy wafi الsamaaءi risqukum wamaa tuucaduun ilaahay waa ballan qaaday arsaaqda damaanu risq qur-aanka iyo axaadiistu waxay noo tilmaamayaan min allah in laga ballan qaaday laakiin macnaheedu maaha tawaakul macnaheedu maaha iska fadhfadhista arsaaqdu way imanaysaaye meelay ku qorantay ma jirto aadana la yidhi iska fadhfadhiya arsaaqdaa helaysaane meelay ku qorantay ma jirto ee waxaa layna yidhi man axyaa ardan maytatan fa hiya lah dhul dhintay qofka nooleeya ee wax ka beera wax ka soo saara innaguna intaynu bannaanadii ilaahay oo dhan weegaarannay ayaynu xataa neefkii daaqaya u diidnay waxna kama soo saarno sharciyan maad mulkinin weligaaba dayr ku wareejiyo dhe aniga iskale waxba dayr naf loo macno samaynayo mashaakilka yaallaa markaa wuxuu yahay waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa fasahaadinta la fasahaadiyo ama dhirta ama xoolaha ama nolosha ama waxa kani wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اddunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا نوح نبي ينوت المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره قيد متاقه ama zarac midho dhulka kuma rido oo bini aadam ma cuno ama xoolaba ma cunaan ama cidi uun ma cunto buu nebigu leeyahy ilaa iyo sadaqad bay u tahy waxaasi waa dhiirigelin la dhiirigelinayo qofka muslimka ahi inuu wax beero bal waxaa kuugu filan xadiidkii uu nebigu yidhi in qaamat الsaaca wa fii yadi axadikum fasiila haddii qiyaamuhu xaggaa ka soo sanqadho uu dhaco oo gacanta aad ku hayso geed timireed la abqaali karo fain istaطaaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha haddaad awooddo qiyaamaha inaad ka gaadhsiin karto xabaddaas geedkaa yar inaad beerto beer buu nebigu leeyahy lidalik bay culammadu waxay dhahdaan garsuhaa cibaada geedka beeristiisaa cibaado ah waayo insaanku bay dhahdeen yatacabadu biاlcamal shaqaduu ilaahay ku caabudaa ilaahay shaqadu ugu dhowaadaa haddaba ayuha alaxiba darsigani wuxuu ku saabsiisan yahay ishkaaliyadda tan sidee loo xallilayaa dhibtan ma laga bixi karaa haa odayga aqoon-yahanka ee yahuudiga ee maraykan ee macruufka ah linguistika ah ee la yidhaha nacum chomsky waa nin aqoon-yahana siyaasaadka reer galbeedkana ragga ka soo horjeeday leftiiska ah ka mid ah ayaa wuxuu leeyahy weedh caan oo la yidhaahdo laa yuujad shay ismuhu beled faqiir yuujad faqad nidaamun faashilun fii idaarati mawaarid اlbeled buu yidhi dunida kama jira buu yidhi dhul la yidhaahdo waa dhul faqiira dunida ma jira buu yidhi ee waxaa jira nidaam faashila oo maamula mawaaridda waxa ay bini aadamku hantiday haystaan nidaam faashil oo maamulo unbaa jira buu leeyahy laakiin waddan faqiiri ma jira buu leeyahy macnaheedu waxa weyaan aadanuhu gaajada farsamo xumidiisaa keentay ee dhulkiisu ma keenin buu leeyahy dunida kuma yaalla buu leeyahy dhul aan dadkiisu aanay wax cuni karin laakiin systemkay u nool yihiin ayaa ah ka dhibta jira anugu caawa kama warramayo qadiyadda tan technically dee kaa culammada ku takhasusta inooga warrami beeraha iyo saa wax loo beerta iyo saa culammada ku takhasusta lakiin waxaan ka warramayaa xalku taqniga ahi wuu dambeeyaa ee waxaa ka horeeya nudrada waxa keena oo dadku inay nabadda cunneed waayaan cunno ku filan in bini aadamku waayo waxa keena
siyaasadda waddan uu leeyahay iyo thaqaafada ay haystaan intaan loo tegin masalada tiqniyada iyo cilmiga iyo farsamada loo tegin. farsamadu bini aadamku waa wuxuu soo heli karo waana wax la baran karo. farsamo kastoo dunida taalla waa la baran karaa waana la soo heli karaa cid taqaana ama waddankaaga gudihiisa ka hel ama dabadiisa ka soo hel waa la heli karaa. laakiin mashkiladdu waxay ka jirtaa culture-ka bulshadu ay haysato iyo qaab nololeedka ay rabto inay u noolaato iyo siyaasadda maamuleed ee ku saabsan cunnada waddanka. dadku siduu wuxuu cuno u heli lahaa siyaasadooda maamulkooda sare uu leeyahay. marka siyaasadda maamulka sare uu leeyahay ka warramayo dad badan waxaa laga yaabaa inay dowladda markaa meesha joogta iyo mucaaradka ka soo horjeedo oo yidhaahda dowladdan wartaa kama warramayo waa iliidkeenna oo dhammi siduu rumaysan yahay ama kuwa hadda jooga ha noqdaan kuwa soo socda ha noqdaan kuwii sii tegaya ka sii baxay ha ahaadaan kuwii inoo soo bilaabay isku kee wada dar maaha kuwa hadda jooga waxaynu emphasize-ka saaraynaa waa iliidkeenna waxaynu ka warramaynaa dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribada qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda. marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo culture-ka dadku rumaysan yahay ayaa caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno. marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan. dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa. walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo bulotinada dowladdu soo saarto maalan waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii oo bulotin dowladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah. waxaan aad ula yaabo waxaa ka mid ah waxaa ku qoran digaaggaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga. 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna. 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah. waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda. beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey. dabeetana waxaan arkay Jabuuti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno. markaasaan aad u yaabay waddankan dhan beedkii uu cuni lahaa laga keenayo dabadda. haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yidhaahdaa iman jirayoo khudaarta wax lagu karsadoo dhan waaga aad baan u yaabanaa ma waddan jira ayaa khudaartu cuno iyo beedku cuno dabadda looga doonayaa. taa anigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan un baan koo 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran. markaasaan ku idhi waar toontan xaggee ka timi toontan markaasuu igu yidhi China. ma intaasoo 1 kilomitir bay inoo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay. hadda dhowrka bilood way bixi lahayd haddaynu ku ridno dhowrka bilood ee markabku soo socday way bixi lahayd haddaynu dhulka ku ridno.
idan caqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mida lagaaga keeno debed waa wax aad u cajiiba wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائيات كدولة الصوصار تبان أجا بلغات كهذا اللي ينوكينه مركان إحصائيات كان كور رميو كما ورميو وحي السوق مدول كينه كما ورميو وحي إنه قيمة أنت إنه دولة دبانو شجنا إنه سكالو صار ضعف إنه أما وحي عشور ضعف كإنه كوكيني أما وحي حدودها ترى ده بدل لك صاقله وحي كور رميو قات كقولة كصاقله محي قلبات كصاقله ee halka lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunay 9 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 9 milyan 460 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunay oo Itoobiya laga keenay وحماشه انت سوى انت دولة عشورتي لكن ده حدود ده دير وتقانين الا هلك كسو قلقات مال والبا باديو دنبو با غبلدا برو دنبو تغا مال كستو تغا هو سومالي وين كما ورمينا وا انت يرا انو جوغنو ايان كا ورمينا ايا و سو غلي 9 مليون او كيلو 6 بلود لا عني هاو ماش باكو بحي اذا مشكلة دني ماها مشكلة يردتكو سيو صوريا ما هدان أخرية داتا هلكا كو قرن دولة صوص صارتي واد عجبي لهايد دتك وحا عنية جي دي بي جن واي مسا وحا صوصار كودن كوبا واي مسا 2002 ألف وورلد بانك ايو دولة وحي سوى صارين وها 1.4 بليون صوصار كينو بقى كوا هذا وقبض يا واحد هذا 2 بليون لكن مسادير وليبا سورسز آد له اعتماد كرمها لكن وورلد بانك هي دولته كيسوى صارتي وحش يجي انت وحش يجي إحصائيات كقاركود عجسية مثلا إحصائيات هوري دولته صارتي ديفيسيت ككوتشرا تجارة إنه وحنا صار نفسانية وحنا ندفنه لا بقول يشن مليون أي لح بلاد جوده ديفيسيت كيه almost وشن نص بليون ديفيسيتين كوتشرنا العكو دو سيت المامية تامعنا هدو حويان يدبر كابيتال وحسوسير كان يدتك أنا مركا الله قيبيه وحكو غياسان قفكي بصدح بقوليو تضبيا فرطن دولار بسنة كدن كوكسو هجاجية دان من اسمال انتي هل دولار مهشيت سنة قويم سما الموت صدح بقوليو شان يلي حدن ودن كانت شوكتو وحسوسير كيسو مالنتي قفكو هل دولار كير بصو ساروية مركا الله قيبيه حسايات كان هينو واحد عن سومالي لهاد مركا الله ايغو وودن كافراد الدنيا دا ugu dambeeya wax soo saarka saddex bay raga si dambeeyay ina baqtiyay waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi saddexdaas ay naga si dambeeya marka la eego investment-ka level of investment-ka approximately wadanka 180 baynu nahay waddanka 180 dad minis 197 waddan baa inaga horeeya runtii ixsaayaadkan ama dawladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba maaha Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin miraha waxay soo sistaan oo qori agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano mesela boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan
xataa sokortaynu iibsanno tubaakadaynu iibsannaaba ka badan saa ma filaysa soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxaa ka badan tubaakada la keeno sokorta la keenaa waa 6.44% bay leeyihin laakiin tubaakada la keenaa waa 8.82% waxaa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay ayuha alaxiba iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaan aynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay 1 min kulli 3 suu taqdiya buu ka caban doonaa reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doonaa kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way kasii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dad aan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aada u yariyey intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambena aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يوحصو صار كله كردية وعبادة بيرها كان يوحل بيرية والنوع من العبادة دوقفوه تلقلو كالجر كاينون نولي أما سي قلدن وحلو عنايا أما وح قلدن لعنايين وحلقة بدلنا والزهد بولي waxaan u baahnay inuu tiro badan leeyahay isku gurin waxyaabaha intaajka is hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay faqarada iyo kuwa waxaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo wax bixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mida khubarada waaweyne brofesorada waa candhiga laakiin wuxuu leeyahay systemka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa system islaamiya laakiin systemka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan beriiskaa soo daadanaye kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedello dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad leh inaynu noqonno taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaat alamni alghidaa'i baadhitaan ku sameeya innaga aqoontaynu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeenna maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh dee sheega business management maxaa businessaynaysaa gaaja u waqtihaysaan
يعني إنه محصو صار لحوشيه وامد كلامنا وقضية تخطيط بوليه مستقبلك سياسة الدولة ده إيه ورر هذا ماذا حبنان إيه بالشوين توينا يلاتو خطة مستقبلية dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen inaga khitadeenna waa maxay waa hay-aadku dunida hana soo gaadhaan iyo socanka maaha dowladdu NGO-yada ha ogolaato NGO-yo badan ha la keenay war waxaas dadka sii gaajaysiiyaa beled ku dhergay lama sheegin oladan cadcada meelahan maraysa waxay wadaan dunida waddan intay tageen dhergay lama hayo faqrun baa la sii qaadaa waa kuwa afartii neef adhi ay dhaqan jireen inta ka soo ururiyeen buulasha u waageeray yidhi waxba laydinku siinaya gaajaday beeraan walidaalika waa axaduhum baa qoray buug la yidhaahdo maxay sinaacat uljuuc buu qoray midi buug la yidhaahdo gaajada samaynteeda sida gaajada dunida loo abuuro ka warramaya iyaga maagi mayno dee waxaynu leenahay lama sitaane waxoodii bay sitaan soo maaha هذا غرب هذا وين يقول ضلعنا يوم يقول ضلعنا نادرك مو كسوق عطيه وحودي بيستاني وحد وقعد لدي بسيتو وحوبا هارين إنه فكرنا وحي هاي إنه ينقو وحلا صباحنا نبا وحسوق عطعنا يور معها وحينوبا هالنوام حي وإنه ينقو كان وحكلا صباحنا إنه تخطيط صبينا بينوبا هني هذا الدراسة كوبا لغو سماية في سورة يوسف قصة نبي الله يوسف ومن أحسن القصص في القرآن وقصة رنتي أدب له وعلم له وأخلاق له وبلشة له وفن كستو علمي ولا ورمك ورميسا قصة داسي النبي يوسف وحكم ده ريادي وجودن بيه وحبسك كسو صارتي ريادي وجودن بيه وحبسك كسو بحي يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إلا يلقى قاري وفيه يعصرون قصة إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تدبي لهيد بيلي أو حكا ورميا sida wax loo kaydiyo ee cunada loo kaydsado iyo intaajka sida loo fiicnaysiiyo iyo istihlaaga sida loo tarshiidiyo ayuu ka warramaysaa qisada waxay ka warramaysaa 7 sanadood wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka waxay ka warramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu geli lahaa waxay ka warramaysaa waxa la cunayo istihlaaka sida loo tarshiidin lahaa si xun loogu falaadeen innaga marka caanu bataanna waa la qubi jiray marka jiilaalkana waa la gaajoon jiray sax ka ma ahay yani waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayey farsamo garan waayey u kaydiyaan yani caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafan kolba biyuhu laga shubo oo faarkoo qura la reebo faarku waa canaboodhe dabeetana way wadhaan carabtiyo way engejiyaan aqadkay sheegaan waa kaa ana geeleenna caadiga la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo uu karuuro kolba biyaha un laga daadiyo karuurka soo hadha la faarka futkiyo faarka soo hadha la wado oo la engejiyo dabeetana haamaa lagu cabaysta canaboodhu noqon lahaa hadhow biyuun baa lagu dari lahaa laakiin dadku haddii aqoontu ay baabaha noqoto documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan weliga ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo intay hashaa farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashii markii dambe يعني بني آدم كو أقوانتو يسدري بني آدم سيدا أوجد نبي الله يوسف قصدي سوى حيت الماميسا سيدي وحلو كيتسان لها يا سيدي وحلو بيران لها يا استهلاكا سيدي لو إرشادين لها سفي عن بني آدم كو استعمالي لها
الأمن الغذائي مركها وقضية لما مولكرو رنتي وحبضنا عن سوق رواهية لكن وقت الصلاة وقعدي وحن رباونا نوركو سوقوبه إن دونيدو لولن بي كجيران لولن كاي كجرتو دونيدونا سي نولان لهاين بي نولميا بني آدم كنا بريكم الدركو dowladnimana kuma dhisanto waxaynu u baahannahay bulsho ahaan culture-keena inaynu wax ka bedello dowlad ahaanna siyaasaadkeena oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello wax dad dhul intaa leeg haysta oo roobu da'o oo gaajoonaya ceeb weeyaan dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan waa ceeb runtii maha wax laga warrami karo waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa xisaayaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay waayo waa ceeb ummad wax haysato baahan oo wax kasto ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa xataa waxaynu cunno waxa ugu badnaan jiray canjeelo waxay maraysaa canjeelada wixii laga sameynay in dabad laga keeno waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhiganno daqiiq cad iyo bariis iyo baasto saddexduba sumtooda ay ka badantay waxtarkooda caafimaad lahayn wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro ma soo saarno haddaynu soo saarnana dee farsamaynan u garanayn xataa beriska waa layna baray saa loo isku dhex kariskareeyo wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go-aynin markaad cunto laakiin waynan garanaynin innagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha hilib cad ku rid bariis ku rid baasta ku rid oo biyo la kariyey waayo waa qondaro yani soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda ka mid ah bay yidhaahdaan waa min afqar innaas kijadooda ay faqiirtay maaha wax la cunaa inaanay oolin waa wax la sameeyaan la garanaynin waayo cidna wax lama barin marka ayuha alxiba innaga gaajayna ma haysee farsamo xumaayna haysa aan dib u fakarno wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin